السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. wuxuu ahaa wiil bulshada ku jeceshahay. wuxuu dhiganay jaamacad ayuu dhiganayay. jaamacada dhexdeeda wuxuu ku dhex arkay gabar aad u quruxsan. gabadhi ayuu ka helay. wuxuu go'aansaday inuu guursado. gabadhi ayuu doontay kadibna wuu guursaday. muddo dheer ka bacdi iyagoo nolol farxad ku nool, Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu irsaaqay wiil iyo gabar. runtii waxay ku noolaayeen nolol heer sare. gabadhi waxay la saaxiibtay gabar ayaa la saaxiibtay ay daris yihiin. gabadha dariska waxay bilowday gabadha inay ninkeeda ku dirto inaa ninkaadii naaga ayuu la sheekaystaa. gabadhii shaytaan ayaa garab ku siiyay. ninkeedii ayaa ka codsatay furniin ayaa ka codsatay. runtii asagana wuu la hadlay, wuxuu dhahay furniin ma fiicno, iska dhaaf. wuu la hadlay, idina way ka diiday, way go'aansatay. gabadhiisii weyneyd ayaa waxay u tagtay, askarta ayaa u tagtay, waxay dhahday aabahay hooyaday ayuu dhibayaa. ninkii waa la xiray. markii la xiray waxaa guriga kusoo haray islaantii iyo labadeeda cunug. runtii nolosha waxay noqotay nolol cariiri ayay noqotay. gabadhoodii ayaa lasoo doonay. markii lasoo doonay oo la fadhiistay waxay la hadashay aabihii ayaa la hadashay, waxay dhahday gabadhaada ayaa lasoo doonayaa, waa inaad si dhaqso ah ku imaadaa guriga. ninkii wuu imaaday, gabadhiisii ayuu la hadlay, wuxuu dhahay aniga guriga kama tirsani. wuu iskaga tegay asagoo xanaaqsan. runtii wiilkii soo doonay aabihiis wuxuu dhahay aniga ma siinay wiilkayga gabar aabaheed soo dacweysay. runtii waxay noqotay nolol cariiri. aabihii guriga ayuu kusoo laabtay, wuxuu arkay nolol cariiri inay ku jiraan. islaantiisa ayuu la hadlay, wuxuu dhahay waxaa ku jirtay nolol cariiri ee waan ku cafinayaa dembigii aad iga gashay, adigana khalad baa iga aamintay. runtii labadaba way isku ooyeen, wuuna soo ceshaday. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.